Ka dheerow dadka niyad-jabka abuura ee aan wax rajo ah ka lahayn nolosha, waayo adna waxay kugu dari karaan kooxdooda ka dhacday nolosha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada waa mar kale iyo fadhiyo cusub. Mustaqbalkaaga ha ku qiimeyn wixii shalayta kaa xumaaday iyo duruufta nololeed eed maanta ku nooshahay. Labadaa lagama qiyaas qaadan karo qofka aad beri noqon karto. Intaad bog cusub furto, beero beer ka madax bannaan ka shalayga khaladaadka shalay iyo duruufta maanta aad ku nooshahay. Marka ay wax kaa qaldamaan, waxaa dabiici ah in aad qof dusha ka saartid. Markaa qofna dusha ha ka saarin khaladkaaga. Naftaada u sheeg in qalad uu dhaco, waayo ma jiro qof bani aadam ah oo aan qaldamin. Iska ilaali mar walba saaxiibka xun. Wuxuu gudbiyaa aragti xun, kalsooni darro iyo cudurrada niyad-jabka iyo xaasidnimada. Waxaad dhahdaa alxamdulillaah xitaa haddii maalmahaaga ay ka buuxaan niyad-jab. Dadku way nool yihiin, way dhimanayaan, qaar way dhoola cadaynayaan, way ooyaan, qaarkood way ismarxabeynayaan, qaar kalena way isku dayayaan. Qaarna qof ayay soo dhaweynayaan oo waxay dhahayaan soo dhawow. Qaar kalena qof ayay sagootinayaan oo waxay dhahayaan Allah ku nabad yeelo. Dadka qaarkoodna wayba ku ilaawayaan. Dadku waxay doonaan ha ku dhahaan, balse ma aha inaad qiimahaaga iyo sharaftaada iyaga dartood u baabi'iso. Waxaa laga yaabaa inay shaqadu kaa daahdo, guurku kaa daaho, sidoo kale caafimaadku kaa daaho, balse ajarku kama daahi doono marna. Dulqaadkaagu intuu dhan yahay ayay farxadaaduna iman doontaa. Mar walibana xasuusnow, inna macal cusri yusraa. Nolosha qofka waxaa ku jira daqiiqad yaab leh oo uusan aqoonin sida loo fasiro, oo uusan weligiis ogaanin sideeda, laakiin waxay qabataa wax kasta oo noloshiisa xigta. Qalbigu markuu Allah ku xidhan yahay, marna ma dareemo murugo iyo dhibaato. Wax walba wanaag ayuu arkaa. Gaajadu ma aha tan uu dareemo qofka soomani, ee waa tan uu dareemo faqiirka aan waxba meel ka ogeynin. Wax kasta nolosheenna waxtar ayay u leeyihiin. Xitaa kuwa xun waxay nagu leeyihiin fadliga inayna bareen qiimaha kuwa wanaagsan. Ha ka fakirin qof si keligiisa kaa bedelay. Waxaa dhici karta inuu iska casilay jilidii una laabtay shaqadiisii dhabta ahayd. Xiriirka aad Allah la leedahay ha ka dhigin sida midka ambalaasta oo kale, maxaa yeelay gargaarka degdega ah waxaanu dalabnaa marka xaalad adag jirto uun. Xiriirka Eebbe xusuuso xilli kasta iyo xaalad kasta oo ku jirto noloshaada. Wax kasta waa macquul waa haddaad samayn karto. Wax kasta way ku hirgeli waa haddaad ku dhaqaaqdo. Wax kasta waad ku guulaysan waa haddaadan guuldarrada ka cabsan. Allahna wuxuu ku leeyahay laa takhaf walaa taxzan innaa munajjuuka. Ha ka baqin hana murugoon, annagaa ku badbaadina. Wax kasta way fogaan si ay ugu dhowaadaan wax qurxoon, sarreeyo wanaagsan ee waxba ha murugoonin. Fikirka faraha badan wuxuu dilaa farxadda nolosha. Waxa uu Ilaahay nimcooyinna siiyey waxay inaga mudan yihiin mahadnaq. Ku mahadnaq nimcooyinka Alleh, kuna sabar qadarka Alleh. Waxaad ka mid noqon doontaa dadka aad u faraxsan. Waxay u dhici doonaan wax walba sida aad ugu taamayso. Addoonka wanaagsan ayaa garta nimcada Rabbigii siiyey, kadibna u mahadceliya. Hadalka ugu dambeeya ee kula wadaagaya wuxuu yahay kalsoonida keliya ee degan qalbiga waa inaan ku jirno ilaalinta Rabbi weyn, nooc walba ay duruuftu tahay.